bananka solo moshaka carabka bananka haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan intaad muuqaal guda gelin kor haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal baa soo gelino videogana like share gareey asxaabtaada commentiga naga ku wixii fikradaada Team Nasir Somali waxaad igala soo xiriiri kartaan Instagram-keena fadlan follow soo kamid anigoo wadada lugeynaya waxaan arkay telefoon wadada yaalo aniga ma rabin inaan qaado balse laakiin waxa way ka telefoon xoogaa yar fiican waan soo qaaday xaafadayaan keenay kadib markaan arkay inuu telefoonka shidmay oo sheegay battery laan kadibna charger-ka aan geliyay xoogaa charger ayaa galay kadib aniga miiska aan wax ku akhrisanay dushiisa ayaan iskaga dhaafay kadib waan soo qaaday waxaan rabay inaan fiiriyo telefoonka wuxuu yahay iyo muxuu yaa lahaa kadib waxaan arkay basqad telefoonka ku soo dhacday iga soo wac numberkan kadib numberkii ayaan wacay wuu iska dhacayaa lama qabanayo aniga waan yaabay waxaan is dhahay muxuu yahay qofka ku dhahay numberkan igala soo xariir habeenada ka mid saacadu markay mehleysay 6:03 daqiiqo habeenimo ayaan basqadii aan daay diray ayaa la ii soo jawaabay kadib saacadu waxay gaartay 8:05 daqiiqo habeenimo ayaa la ii soo jawaabay kadibna waxa liigu yiri Nikki halkee joogtaa aniga waan nahay aad ayaan u cabsaday sababtoo waxaan is dhahay qofkan sidoo magacaaga ku gartay waan walwalay kadibna waxaan is dhahay telefoonkan aniga wadada ayaan ka soo helay adiga yaa tahay maxaan rabtaa inaad samaysid kadib waxaan dareemay in qof hooskiisa oo baabka si xoog ayaa lagu soo garaacay kadib dhankii albaabka ayaan soo aaday si aan u fiiriyo balse laakiin markaan albaabka eegay banaanka cidna ma aysan joogin aniga cabsida ayaa igu sii saaciday awlayaan waxaan ka walwalay qofka magacayga sidoo ku ogaaday haddana albaabka ayaa la ii soo garaacay aad ayaan u cabsaday waxaan garaway waxaan sameeyay wax kale kadib qofka ayaan haddana basqad u diray waxaan dhahay dhegeyso adiga aniga miyaad rabtaa inaad igu ciyaarto waxaa liigu dhahay naftadaada badbaadso waxaana dareemay in albaabka guriga la soo jibiyay kadibna waan xiray mana aqaan qofkaas waxaas dhan sameynaya kadib waxaan isku dayay inaan telefoonka waco telefoonka ayaan bilaabay wicitaankiisa waxaan galay shil kadibna waxaan soo kacay anigoo saaran sariirta emergency isbitaalka markaas ayaa miir ugu dambeysay balse laakiin waxaan maqlay hadallada toorada ay ku hadlayaan iyo waxay ku wada sheekaysanayeen iyo gargaarka degdega la ii sameynayo kadib bartaas ayaa miir ugu dambeysay marayaan waxaan soo kacay anigoo garab taagan yihiin 2 nin oo toora oo ka sheekeynayo arrimo aniga igu saabsan aniga aad ayaan ugu yaabay kadib waxaan soo kacay dhulkoo dhan oo iftiimaya waan yaabay madax ayaa si aad ii xanuunaya markaan soo kacay waxaan dareemay meesha inaysan ka dhaweyn hal qof oo binaadan waan la yaabay meeshan aad ayaa cidlo ahayd qolka ayaan ka soo baxay arbadii wixii aan iska soo furfuray waxaan raadinayay meeshii albaabka banaanka laga aadayay mar boqol sidaan u soo galayay waan daalay sababtoo waxaan rabay inaan banaanka baxo waxaan jirtay shanqar aan ka maqlay qolka isbitaalka mid ka tirsan balse waxaan garaway qolku yahay ee qolka ka imaanaysa shanqarta waan soo baxay waxaan soo qaaday wadada highway-ga isbitaalka dhexdiisa ku taalo si aan banaanku aado kadib anigana xanuuno badan ayaan dareemayay saasay tahayna waan soo socday waxaan soo agmaray qolal badan oo bukaano lagu xareeyo
kadibna waxaan arkay qol markaan usoo dhawaaday albaabkiisa lasoo xiray. waan ka shakiyey, waxaan isdhahay qolkan muxuu yahay talo. kadib qolkii ayaan albaabkiisa soo furay. waxaan islahaa waxa ku jiro qof titooriya waxyaaba noocaas oo kale. qolka ayaan kusoo dhex lugeyey sidaan u ogaado qolka wuxuu yahay. balse laakiin arrin aad ugu naxo aan ka fajac ayaan meesha ku arkay. meesha waxaan ku arkay meyd saalan saalada. si fiican ayaan u fiiriyey, aadna ayaan ugu naxsanaa arrintaas. kadib waxaan ogaaday qofka meydka inaan ahay aniga. qofkani waa aniga. waxaa jiray dhismo aad u weyn oo ku yaala magaalada. anigana waxaan jeclaa wadista baaskiilada iyo waxyaaba noocaas. dhismo anigu wuxuu lahaa meel baakina aad u weyn, khaasatan dhanka baabuurta lagu baakimo. marmarka qaar firaaqa ayaa noqonaysay, waxaana jeclaynaa baaskiilada ku wadano si xatooy ah. waxaan wacay asxaabteyda saadaq, axmed, cabdulaahi iyo sharmaake. markay imaadeen asxaabteena waxaan sugeynay intuu garaashka firaaqada ka noqonayo oo laga furanayo. kadib meelo ayaan ku dhangamba jirnay. markay gabaarida meesha ka soo baxaan ayaan anagana meesha soo geli jirnay si aan u baashaanno. maalin maalmaha ka mid ah sidaan meesha ugu baashaalaynay, ugu ciyaareynay baaskiilo wadista iyo waxyaabahaas anaga aad ayaan u xiiseynaa. kadib ayaan waxaa maqalnay gaari soo galay meesha baakinka. gaariga wuu soo galay meesha ayuu istaagay. qofka ku dhex jiro anaga si fiican maan u arki karin, balse laakiin waxaan ogin inuu yahay qof rag ah oo madaxa ugu jiro jaakad. haddana isla daqiiqadihii kadib waxaa dhankiisa soo istaagay gaari kale oo xoogaa asigana weyn. kadib labada nin ayaa soo hor istaagay, wayna wada hadleen. ninkii jaakada gaduudnaa watay ayaa lacag loo soo taagay. kadibna wuu xanaaqay sababtaas qof lacagta lagu yareeyo kale oo shaqo adag soo qabtoo kale. labada nin isfahan waa ayaa ka dhacay, kadibna way isdagaaleen. ninkani jaakada buluuga watay biskool ayuu la soo baxay. ninka ayuu laba xaba ka kiciyey. ninkii barti ayuu ku dhacay. anigana waan cabsanaynaa sababtaa ma qayli karno. kadib rag kale ayaa gadaal u saaran ayuu u qayliyey. wuxuu dhahay kaaley waxaa naga asturaaciyo. ninkii meydkiisa waa la qaaday, dhiigii iyo wixiina meesha waa laga hagaajiyey. aniga aad ayaan u naxay, wadnaha ayaa wuxuu ii gariiray si aan caadi ahayn. saaxiibka ayaa wuxuu igu dhahay niyow meeshaan naga wad, booliskan ayaan u soo wacaynaa. kadibna intaan sii bixaynay ayaa asxaabteena mid ka mid ah la arkay. waxaan arkay ninkii tuuga anagoo sii dhudhuumaneen. wuxuu dhahay halii soo qabtay ciyaalkaas intayna baxsanin. kadib gaari ayaa naga soo daba qaateen. ana asxaabtii ayaan u qayliyey, mid walbana baahis ayuu shitay. aad ayaan usoo cararnay. anigoo cabsanaya ayaan soo cararayay. ninkan wuxuu ku hayay waa idin dilayaa dhammaantiin, haddaan idin qabto waad dhimanaysaan. gaari ayay naga soo daba ciirsadeen. anagana waxaan dadka lijantiyaal ah oo baashida loo wada aad u yaqaano. waan soo cararnay, baash ayaan ku soo cararnay. gaari waxyaabahaasna ma wadano. hal saaxiibkeena bas ayaa bahasha baaskiilka oo kale watay. anagana lugeen ayaan kusoo baxsanay. kadib mid saaxiibkeena ka mid ayuu gaariga u soo dhawaaday. asigoo gaariga ku dhici rabo oo waxyar u dhiman yahay ayuu wadada ka baxay. sababta asiga xataa wuxuu ahaa nin aad u yaqaana bahashi loo wado. kadibna waxaan ka soo baxnay albaabka ee ka baxa dadka caadiga. balse laakiin gaariga ma uusan naga daba harin. annagana siyaasad iyo maskax ayaan u isticmaalnay. waxaan soo xasuusanay markaan meesha soo gelaynay inuu jiray gaari meesha soo galay. mana naqaana gaariga meeshuu joogo saaca. waxaan go-aan ku gaarnay inaan ka baxno qolal meesha ku yaalo mid ka mid ah. saaxiibkii ayaan wacay oo bannaanka joogay. isigana wuxuu sii wacay booliska si aan meesha uga baxsano. sababtoo meesha si dhaqsi leh looguma bixi karo. waxaa loo baahan yahay qof haysto kaarka albaabka loogu baxo. kadib dabaqa qaybta kore ayaan ka soo baxnay. booliska ayaa si dhaqsi leh ku wacnay. meesha dhan waa la xiray, raggiina waa la raadiyey. kadib waxaa la shiday kaamera CCTV meesha ku taalay ayaa la baaray. kadibna raggii waa la ogaaday iyo waxay yihiin. balse laakiin dhibka jira ayaa wuxuu noqday gaariga ninka wax dilay watay taargadiisa waa la arki waaye.
sidaas daraadeed booliska raggii way waayeen. anagana sida maalinkaas gaariyada noocaas waan iska ilaalinaa meeshiina mar dambe maanu ku laabanin. waxaan helnay meeshii halista badneed meel ka fiican oo ka qurux badan, balse laakiin waxaan go-aan ku gaarnay garaashkaas dambe inaan agtiisa xataa aanu marin. Side to the left, go to the airport. Side to the right, gacantana taagan. Carabka banaanka, solo